kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiina meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha. haddaba barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha maanta waxaan diiradda ku saaraynaa hadduu eebbi subxaanahu tacaala idmo ciyaarihii xalay la ciyaaray iyo weliba kuwii oo ka horeeyay oo maalintii talaadaha la ciyaaray kuwaasi oo ku soo idlaaday dhammaan natiijooyin wax ku ool ah oo kooxaha qaarkood ay dirqi markaasi ku soo baxeen qaarna markaasi ayagoo markaa horeba u soo badsheen sida Arsenal oo kaleento ay haddana badis labaad sameysay homa weyna ee garaacday kooxda Real Madrid. sidoo kale kulamadii la ciyaaray ayaa waxaa kamid ahaa kooxda Barcelona oo la ciyaaraysay Borussia Dortmund oo marti ay ku ahayd dalkaasi Germany ayaa waxa 3-1 ay markaa ku badisay kooxda Borussia Dortmund walow ay kooxda Barcelona ay horey 4-0 ugu soo badisay taana ay dhigayso ciyaartaasi 5-3 markaasi tirada goolasha markii la isku geeyo wadartoodu ay noqon doonto aggregate-ka ama wadar ahaanba isku geeymadooda ay noqonayso 5-3 sidaana ay ku soo baxday kooxda Barcelona oo si dirqiya markaasi kaga soo baxday walaal kulankaasi markii la fiiriyaba oo Barcelona ay ahayd koox ay si weyn ay kaga jiiftay habeenkaasi la ciyaaray talaadadii la soo dhaafay. sidoo kale waxa ayadana ciyaartay kooxdaas Aston Villa ee dalkaas Ingiriiska ay ku marti qaatay kooxda PSG ee ka socota dalkaasi Faransa ee La Liga markaasi boqortooyo ka ah. haddaba Aston Villa ayaa 3-2 ku garaacday taana waxay markaasi ugu dhigantay 6-3 oo ay markaasi ciyaartu ay ku soo baxday si dirqiya ay 4-3 adhe ay si dirqiya markaasi ay kaga soo baxday kooxda PSG. haddaba kulankii xalay la ciyaaray ee markaasi wada ciyaarayeen kooxda Inter Milan oo ay markaasi ku marti qaadaysay San Siro dalkaasi Talyaaniga ku yaala garoonkooda iyo waliba kooxda Bayern Munich oo ka socota dalka Germany ayaa waxay markaas la dhaafi waayeen barbaro 2-2 kulankaasi ayaa wacdaro aan inaba caadi ahayn ay kooxda Inter Milan ka dhigtay waxaana loo muujiyay kooxda Bayern in markaasi ay awood u lahayn inay ku badiso San Siro ee dalkaasi Italy. haddaba ciyaartaasina waxaa markaa ay soo baxday natiijo wax ku ool ku soo baxay ee noqotay kooxda Inter Milan oo 2-1 ay ku soo dubatay garoonka Arena Stadium ee dalkaasi Germany ee kooxda Bayern Munich ay leedahay. natiijadaasi ayaa markaasi waxay u noqotay mid wax ku ool ah kooxda Inter Milan ay u soo baxday. Inter waxay markaasi afardhamaadka markaa ay isku arki doonaan kooxda la yiraahdo Barcelona. haddaba Barcelona ayaa laga yaabaa in Inter haday iska hor yimaadaan ay Inter markaasi ay noqoto koox ka soo baxda kulankaasi walow kulankaasi oo yahay mid aad iyo aad dadku u xiiseynayaan sababtoo ah Inter Milan waa kooxda difaaca ugu haysato caalamka xilligan la jooga adduunkan iyo waliba kooxda weerarka ugu fiican ee xilligan la joogana ay kooxda Barcelona ay tahay. weerar iyo waliba difaac oo labadoodaba inaba caadi ahayn ay labada koox soo kala bandhigeen waxaana adkaan doonto Barcelona inay gool ka dhaliso Interna waxa ayaduna markaasi ay adkaan doonto inay celiso ama xakamayso kooxda Barcelona. haddii Inter ay gool dhaliso sidii kulankii Arsenal oo kaleenta ay goosha kaga hormartay rigoorada ahayd kadibna ay train dabada dhigteen qaybta dambe ee ciyaarta waxay markaasi adkaatay in Arsenal ay gool markaasi ka dhaliso ama ay burburiso difaaca ciyaaraya kubadda low block la dhahayo ama qaybta difaaca hoose. haddaba aad u adag tahay ciyaaraha qaarkood in markaasi laga keeno goolal haddii kooxda Inter ay ayadu gool ku hormarto kadibna ay difaac xirato aad bay u adkaanaysaa dhan kastoo aad isku daydo inaad kaga dhaliso madaxana ka dhali karin oo kubadda ayagaba Italian oo Talyaani ayaa waxa lagu ciyaaraaba madax marka aad bay u adag yihiin ina madax ka dhaliso 18 korney in ka badan ayaa kooxda Arsenal ku heshay markii goosha laga dhaliyay rigoorada ay difaac ay xiratay kooxda Inter Milan 18 kaasi kornana hal korn xitaa way awoodi weyday in ayadu markaasi ay dhaliso ama ay ku sigto boorteeriga sababtoo ah waxa madaxa la laalayay ama ku dhifanayay ku bixinayay isla kooxda Inter Milan ciyaartoydooda. haddaba marka Barcelona aad u adkaan doonto xaalka hadii gool looga hormaro ay Interna markaasi isku daydo inay difaac xirato
aad bay u adkaan doontaa ciyaartaas. laakiin haddii ay Inter markaasi daysho kubad furan waxaa markaasi ay u fududaan doonto kooxda Barcelona inay dhowr gool ay ka dhaliyaan. haddaba daawade maxay adigu kula tahay, maxaase ka filan kartaa kulanka Inter Milan iyo Barcelona dhaxmari doono? haddii lugta hore iyo lugta dambaba yaa badin doona isleedahay? ma Barcelona isleedahay way badinay, mase Inter Milan isleedahay way badinaysaa? haddaba waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeenan iyo barnaamijyada dambe sida ay markaasi awood u kala leeyihiin iyo qaabka ay markaasi labada kooxood ay fursado u kala heli karaan. sidoo kale kooxda PSG iyo kooxda Arsenal oo ayadana si weyn isha lagu haayo oo ay dadku inta badan daawadayaashu ay leeyihiin ama sportiga falanqeeya ay leeyihiin Arsenal waa ay ka badin kartaa PSG-na Arsenal waa ay ka badin kartaa. walow kooxda Arsenal Thomas Partey oo jaala kaga maqnaan doono kulanka koowaad ama lugta hore ee markaasi PSG iyo Arsenal ay dhili doonaan. haddaba maxaa markaasi isleedahay oo Arsenal ma awoodi kartaa inay markaasi ay disho kooxdan maadaama kooxda PSG ay isku soo arkeen isku aadkii gruubyadii hore ee la ciyaarayay isla championka hadda socdo oo ay Arsenal 2-0 ay ku soo badisay. walow Dembele oo markaasi Ismaan Dembele oo fadhiyay oo macalinku ugu talagalay inuu fariisiyo kadib markii macalinka iyo Ismaan Dembele ay isku dhaceen oo sidaasi macalinku sheegay inuu fariisinayo Ismaan Dembele kulanka Arsenal ee la dheeli doonaan. sidaasna waxaa markaasi suuragal u noqon weyday inay kooxdaasi markaasi ay la ciyaaro Ismaan Dembele. sidoo kale Arsenal hore way isku soo arkeen dhowr jeer. PSG iyo Arsenal ayaa badis badan inta ay is arkeen oo idilba Arsenal ayaa badinaysay. aad baad u mahadsantiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. kulanka dambe inta warbixinaheena dambe aad ka keeni doono waxaana leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo barnaamijkeena aad ka heshay inoo follow garay barnaamijka oo sii share garay meel dheerna gaarsii laagta iyo commentigana hanaga ilaabeen. waa qayb ka mid ah dhiirigelinteena. aad baad u mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.